waxay dood culus oo dadweyne ka taagan tahay fanaanada Habboon Nuura oo shalay ka degtay magaalada Muqdisho tii ay ku jirtay fanaaniin wax ka qaaday hees aan kaliya lagu taageerin isnacaybka iyo kala irdhaynta Soomaalida sidoo kale makasta loogu xayeysiiyay amxaarada oo lagu tilmaamay kuwa Soomaalida kala xiga ama u kala roon heestan oo halis ku ah ammaanka iyo jiritaanka qowmiga ah ee Soomaaliyeed guud ahaan ceebta kale ee ugu weyni waa in laga qaaday maxfal iyo madal ballaaran oo ay fadhiyeen madax iyo majo nooc kasta ah oo mujtamaca ka tirsan aan eriyadeeda hal qabsiga kamid ah damba xaasidkaaga tiri ka guur dariskaaga xun malihin cadow xamar ka daran garoowe iyo kuwa xintama waxa iga xiga amxaar xurmiyo sharaf igula nool si kastaba uma baahnin inaanu qaranka u sharaxno khiyaaliga ka buuxa xurmada iyo sharafta la huuyay nin boqolaal sano dagaal kugu hayay dal iyo dadna qaab aan daw ahayn kaaga haysta walow ay dabuubta marar badan dadweynaha la hor yimaadaan siyaasiyiin aqliga ka dilan aanu soo dago waxa ay tahay in laga yeelo fanaanada hadda xamar joogta iyo qof kasta oo heesta wax ka qaaday ama xitaa taageeray midna aan ka digo horta aan digninta ku horeeya sida laga yeelayo heestani maaha dood qabiil haddii dood qabiil laga dhigana nuxurba yeelan mayso oo waa sababta loo sameeyey in bulshada la kala qaybiyo oo la kala hoos geeyo cadowgooda oo taa ayaad markaa taageeraysaa sidaa darteed reer gaar ah oo ay tahay inuu ka dhiidhiyo ama ka jawaabo ma jiro waa arrin u taala Soomaali oo idil waan ku celinayaaye heestani waxa ay halis ku tahay jiritaanka guud ahaanba Soomaalida maangaabnimo weyn baana ku jirta cid kasta oo aragta wax fiican iyo fan xigmad sida isla markaana cambaar aan abid ka haraynin baa saaran qof kasta oo kamid ahaa madaxdii inta aragtay heestan qaban weyday qofkii wax ka qaaday iyo kii ilaaqda umadeed alifay isna waa ku eedan yahay sida darteed yaan la reeraynin tan kale si kasta oo Soomaalida isku khilaafsan tahay siyaasad geela ay ku dawaqday qof Soomaali ah uma eka inuu mid kale ku yiraahdo amxaar baa ii ka naama waayo taasi waa gaf ruuxi ah oo aan sal iyo raad toona ku lahayn tagtada joogtada iyo timaadada intaba amxaar abidna kuma dhaamin hadda kadibna kuma dhaami doono Soomaali kale waa inay tibixdaas aan hadda sheegay ahaataa halku dhag istiraatiiji ah oo uu goos dambeedka ku haysto qof kasta oo Soomaaliyeed isla markaana lagu daro manhaj kasta oo uu Soomaali dejiyo oo caafimaad qaba haddii aan soo laabto sida laga yeelayo fanaanadan Habboon Nuura oo nasiib darro ka hor intii aanay dhiiqadan dhexgelin kamid ahayd fanaaniinta soo baxaysay kuwa ugu hibada badan yaan laga xigsanin Muqdisho waa caasimadii dalka haddii ay u soo muraaday had timaado hana loo loogo laakiin mid meesha kuma jirto mana mudna in loo sameeyo waana soo dhaweyn heer dadweyne ah oo shaacsan iyo bandhig u dhigid taa ma mutaysanin mid waa gaar oo haddii ay wixii ay samaysay si rasmi ah uga raali geliso dhammaan ummadda Soomaaliyeed dibna aanay ugu noqonin hadda kadibna ay waliba ka shaqayso wixii tiirinaya ama tabantaabinaya Soomaalinimada oo haatan maraysa marxalad xasaasi ah iyo luuqyo mugdi ah oo uu mangaabku u arko inaanay marna ka kici doonin laakiin ay ka boodi doonto ilaahay idankii maxamed xaaji hadal same TV